صلاتي ما أخليها هي حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. عجينا الدين عقساب سنياي اغتنام الأوقات ولقى فائديستو iyo badin la badiyo istighfaarta fadliga caalimka ku sugan buu iyadoo cashiradeenii xiriirka soo ahaa inuu kaga hadlaynay xuquuqaha ballaaran ee nasaarama qoyska arrimaha qoyska ugu badnaa arrinteenu ayaa waxa aynu cashirkeena maanta ku qaadanaynaa in aanu ruuxu isku iloobin awlaad la xanaaneeyo iyo ganacsi laga shaqeeyo aanu digrigii ilaahay ku iloobin laakiin waqtigiisa uu ka faa'iidaysto oo maalmaha maraya adduunyadu oo fursad qaali nagu ah dhammaanteen uu ka faa'iidaysto inuu badiyo acmaasha saalixa buu isagoo istighfaartana aynu badinayno si aynu helo dembi dhaaf cadiima aynu ilaahay uga helo caza wajalla buu qaala tacaala istaqfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursilu samaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaati wayajcal lakum anhaara ilaahay baa amray ambiyadii ilaahay koonka uu soo diraayey rasuul walba ku ilhaamiyey in ummaddiisa uu ku baraajiyo rasuul waliba inay ilaahay weydiisaan dembi dhaaf taas hadda ilaahayna ku tilmaamayaa oo ilaahay caza wajalla ku ilhaamiya rasuul walba in ummaddiisa ku baraarujiyo in ilaahay la weydiiso dembi dhaaf buri istakfiruu rabbakum weydiisa buu rabbigii buu leeyahy istikfaar dembi dhaaf weydiisa allihiin ilaahay waa kii dembigii dhaafa ah ee dembi dhaaf badanaa buri yursilu samaa calaykum midraar markaad istikfaarta badisaan ayaa ilaahay caza wajalla inoo ballan qaaday inuu samadiisana darar ka samaynaayo oo uu dararinaayo yursilu samaa calaykum wayumdidkum biamwaali baniin waxaana ilaahay kaloo u ballan qaaday khalqiga marka ay istikfaarta badiyaan ilaahay u soo noqdaan ilaahay caza wajalla dembidhaaf weydiisaan inuu siinaayo nicamtiisa ballaadhan ee naxariistii ka midka tahay iyo awlaaddii ay jeclaayeen iyo maalkii ay jeclaayeen adduunya aakhiraba wixii nicmo ay doonayeen buri taasaynu isku baraarujinayna dhammaanteen inaynu badinno istikfaarta oynu ku helayno muraadaheenna kala duwan fi dunya walaakhira buri waxaa kaloo isfaraynaa dhammaanteen inaynaan ku mashquulin awlaad la xanaaneeyo iyo ganacsi laga shaqeeyo aynaan ku iloobin xuskii ilaahay iyo digrigii ilaahay iyo waajibaadkii ilaahay inagu waajiye buri kamaa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuliikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إلهي بأذنكم برهالجين أيها إننا نكون مشغولين لا تلكم يعني ذكر شغلين بربليهي مالك حنانين تيسا قناعسكين رقات رقوستان يا أولاد حنانين أولاده can dikri illaah digriga ilaahay xuska ilaahay waajibaadka ilaahay inaad la timaadaan shantii wakti salaadihii oo kale iyo ilaahay caza wajalla digrigiisa ood badisaan yaana idinka mashquulin buu rabbi yidhi maalkiina ood rogaysaan ganacsiga iyo awlaadda xanaaninteedu ilaahay wuxuu nagu baraajiya ruuxa ku mashquula adduunyo awlaaddiisii ku mashquula reerkiisii ku mashquula ganacsigiisii ku mashquula xuskii ilaahayna iska ilooba fa ulaa'ika hum alkhaasiruun wuxuu ka mid noqon buu rabbi yidhi kaasi kuwa khasaaroobay maadaama uu iloobay digrigii ilaahay iyo xuskii ilaahay uu ka tegey ee uu ku mashquulay uun adduunyo iyo awlaaddiisii iyo ganacsigiisii wuxuu ilaahay noo tilmaamay inuu kaasi kuwa hoogay ee khasaaray ee labada ku hoogaya daarta dambe ee daa'imka waxaa kaloo rabbi nagu baraarujiyey wixii deeq ilaahayna siiyana inaynu wax ka bixinno aynaan noqon bukhala dad bukhala ah oo qaraabogoys iyo naxariis la'aan ay ka muuqato gacmahoodu xidhan yihiin aynaan noqonin laakiin aynu noqonno haddii ilaahay deeq wixii uu ku siiyo ee deeq ilaahay kugu deeqa inaad wax ka siiso agoomaha iyo masaakiinta iyo jiiraanka iyo qaraabada intaba waa la amray wa anfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum lmowt ilahay baa wax ka bixiya waxaanu idinku deeqnay wax ka mida oo wada bixiya ilaahay ma laha laakiin wixii deeqan isii bule wax ka bixiya oo ama zakadii ha noqoto waajibka ahayd ama sadaqaba ha noqote wax la baxa buu ilahi caza wajal intaanu idin haleelin saacaddiina ayna dhammaanin oo idan qoomamayn
oo idaan odhan ilaahayow maa dib ii dhigtid aan wax la baxoon ka mid noqdo dadka wa wanaagsan aan ka mid noqdee waxaana ilaahay noo tilmaamay hadday saacaddeennu dhammaato inaan daqiiqadna dib loogu kaadinayn walan yu'akhir allaahu nafsan idaa jaa'a ajaluhaa wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun ilahay wuxuu noo tilmaamay naf saacaddeedu dhammaatay inaan dib loo dhigayn oon wax loogu kaadin iyo daqiiqadna aan dib loo dhigayn horeynu laga soo hormarinayn saacaddiisii oon gaadhin aan naf laga qaadayn saacaddiisoo gaadhayn aan dib loogu dhigayn bul ilaahayna waa khabiir waa ka khalqiga iyo kownka oo dhanba og waxay falayaan camladooda hoostooduna og khabiirko khawaadirtooda hoose waxay falayaan waa ka ilaahay la socday og waxay ku dhawaaqaan iyo waxay qarisanayaanba khalqiga dhammaanba waa ka ilaahay la socday khabiira waxaana ka dhalan koldii ilaahay og yahayna waana idinka abaalmarin doonaa oo ciddii wanaag ku mashquulsan iyo ciddii wanaag qarsanaysa iyo ciddii wanaag ku hawlan iyo ciddii khayrka shaqaynaysana ilaahay wax wanaagsan buu ku abaalmarinayaa ciddii masaa'ib iyo imtixaan iyo balaayo ku hawlan iyo kala dil iyo qabaliyo iyo waxaan wanaagsanayn xagga islaamka ruuxii ku mashquulsanna ilaahay waa ka abaalmarinayaa wuxuuna ku abaalmarinaya ciqaabkiisa caliimkaa bul taasnu isku baraarujinaynaa rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam fii saxiixi tirmidi ayuu nagu baraarujiyey in amuurahayna aynu ka faa'idaysno shan wakti aynu shan arrimood u degdegno intaanayna haleelin shan arrimood oo iyaguna labada ku ilowsiya shanta arrimood oo wanaagsan bul shabaabka qabla haramiga iqtanu khamsa qabla khamsin rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi shan amuurood haniimaysta oo u dadaala shan arrimood markaad ku sugantihiin dadaala oo ka faa'idaysta intaan shan arrimood oo kale idinku habsan oo idinka mashquuliya wixii wanaagsanaa bul intaad da'yar tahay shabaabkii qabla harabika intaad da'yar tahay cibaadadiina barye buu leeyahay rasuulku sala allahu alay wasalam oo inta aad labada dhalinyarta tahay ka faa'idaysta buu ilaahay rasuulku nagu baraarujiyey inta aanad gaadhin haram gabow aanad waxba qabsan karin iyo cibaadadii ilaahay aana dhib kuu noqon bul wasixatika qabla sakamik caafimaadka intaad caafimaad qabta ka faa'idaysta oo caafimaad qabkaaga uga faa'idaysta cibaadadii ilaahay iyo daacaadkii ilaahay iyo camalkii saalixa uga faa'idaysta wax wanaagsan oo qabsato maalmaha caafimaadka ka faa'idaysta intaanu ku haleelin cudur ku ilowsiiya camallada saalixa iyo waxaad qabsataba ood waxba qaban kari weydo iyada oo labada xaalkaagu kala daato kol dad dad xanuunsato cibaadadii iyo wixii wanaagsan qaban jirtayba wuu kaa kala daadanayaa taasuu dee rasuul nagu baraarujinayaa caafimaadkiina ka faa'idaysta intaan cudur idinku habsan buu wafbira qabla shuqlika intaad kanshaa haysaan haleelka haysaan eed wax haleelaysana ka faa'idaysta oo waxbarashadii diiniga ahayd iyo waxbarashadii maadiga ahayd inta aanad mashquulin buu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam eed haleelka haysa ka faa'idaysto qabla shuqlika intaanad mashquulin oo kol hadaad xaasawdo ood mashquulsho ood awlaad yeelato waxaad ka mashquulaysaa waxyaabo badan marka intaad kanshaa haysaan eed haleelka haysaan buu rasuulku amray ka faa'idayso waxbarashadii cilmiga ahayd diiniga ahayd iyo maadiga ahaydba ka faa'idaysta intaanad ka mashquulin waxbarashadaadii wakhinaaki qabla fakrig intaad hodanka taheed waxayso wax la baxa eed waxna gacanta wax kugu jiraan ka faa'idayso oo sadaqaad iyo xidhiidhintii qaraabada iyo agoommaha iyo jiiraanka kaalmayntiisa u dadaal inta aanu ku haleelin fakri aad waxba kala garan weydo oo geesaad ka socotay gees ha u socotaba aad iskala garan weydo bul waxayaati qabla mowtig rasuulku sala allahu calayh wasalam waxaa amray noloshaada ka faa'idayso maalmaha adduunya nooshahay oo ka faa'idayso camallo saalixa la kaalay iimaankaaga saadiq ha dhig oo iimaan saadiqa la kaalay camallo saalixana la kaalay inta aanu ku haleelin mowd geeri lagu ambabixo iyo asxaabuulqubuur oo labada lagugu abaalmarinayana wixii adduunyada maalmaha joogtay ad camal fashi baa layidhi taasuu dee rasuulku noo tilmaamay sala allahu alayh wasalam in ruux waktigu saacaddiisu dhammaato laba qaybood miduu ku biiraayo inuu naxariista ilaahay ku raaxaysto iyo inuu ciqaab iyo cadaab aliima uu la kulmo baa layidhi taasuu rasuulku tilmaam ka dhigay sala allahu alayh wasalam qabriga layna geyn doono ayuu laba qaybood rasuulku ka dhigay sala allahu alayh wasalam rawdu min riyaadi iljanna aw xufra min xufri naar buu lahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam qabrigu wuxuu noqon buu ihi laba qaybood midun buu idiin noqon buu ihi rawdu min riyaadi iljanna meelaha laga kulmo naxariista ilaahay iyo ilaahay caza wajalla soo dhoweynta iyo kaalmaynta allah iyo ridaha iyo raxmadda rabbi meelo laga helo inuu ilaahay qabrigi kaaga dhigo naxariis ilaahay kala kulanto waa la arkaa markaad camal wanaagsan ka shaqayso maalmihii adduunyada aad joogtay iimaankaaguna saadiqaa bul ow xufra min xufri naar inuu noqdo qayb cadaaba oo naaraha meelaha laga kulmo ciqaabka ilaahay cadaabka alle halista ah
meelaha laga kulmo inuu kuu noqdo qabrigaagii oo lagu ciqaabo haddii aad ahayd adduunyadii ruuxna maama ku dadka isku dira oo qabaliyo iyo imtixaan iyo masaa'ib iyo kala dil had yeeshee shaqadiisu ay ahayd oo ruux markuu ku mashquulay adduunyadan inuu asxaabta kala dilo qabiilooyinka kala dilo qoyska kala dilo namaam uu namiimi ahaale dadka isku dira taasuu dee rasuulku noo tilmaamay inuu la kulmaayo xufra munxafari naar buu kala kulmayaa qabrigiisaas taasna waa lainooga digayaa in camalkeenu uu noqdo kaa ciqaabka dhalaayo waa lainooga digay dhammaan oo namiimi ah oo kale isku dirkaas waa mid lainooga digaya dhammaanteen laakiin waxaa laina amraya camalo saalixa inaynu ku dadaalno wixii wanaagsan ee awaamirta ilaahay iyo sunnayaashii rasuulka sala allahu caleyh wasalam wamaa ataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rasuulkii alla keenay qaataba ilaahay baa leh wuxuu idiin diidayna ka taga ayuu ilahayna leeyahay caza wajalla markaas aynu nabadgelyo uga helo xagga ilaahay waa inaynu ku dadaalnaa camalada saalixa ah waktigeenna marayana aynu ka faa'iidaysanaa oo waktigeenu aanu khasaare naga dhicin si haddii labada waktigu kaa khasaaroobo aynaan ugu dhicin kuwa ilaahayu qiyaamaha ku odhan doono awalam nucamirkum maa yatadakara fiihi man tadakara wajaakum nadiir miyaanaan idin cumri siinin oo inuu ku baraarugo ruux baraarugaa miyaanan ku jirsin adduunyadii oo aan 40 jir 50 jir 60 jir 70 jir cumri lagu baraarugo miyaanan ku jirsin maalan oo maan digniinta ku iman oo rasuulkii ilaahay sallallahu alayhi wasallam ama kitaabka ilaahay munazilka quraanka kariimka ama ciradiiba inay ku taabato oo digniinta waa dhowr qaybood mar waa kitaabkii quraanka marna waa rasuulkii ilaahay sallallahu alayhi wasallam oo isaguna daalil khayraad ah iyo ciradii oo iyaduna da'dii ah ee lagu leeyahay waa inaad baraarugtaa oo camalkaaga saalix ka dhigtaa marka dhammaantiin waxaan isbaraynaa waa inaynu ka faa'iidaysnaa camaladeenna saalixa oo inaan ku mashquulin awlaad iyo maal aynaan ku mashquulin laakiin digriga ilaahay iyo jidka mustaqiimka ah aynu dhammaantiin ku dadaalaa ilaahay waxaan ka rajeynaa inuu na mariyo jidka mustaqiimka allah ina mariyo ilaahay inoo barwaaqeeyo adduunyada wanaaggeeda allah inala kulmiyo camalkeenna saalix allah ka yeelo amuureenna khayr allah ka yeelo balaayooyinka allah inaga xijaabo wabilaahi towfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.